horta marka hore waxaan leenahay waa ducaynaynaa waxaan leenahay xanuunka Allah caalamku ka qayrinayo waxaanu soo gaadhina ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanu soo ilaahay inuu ka dulqaado wixii hayo waxa kale inuu soo gaadhin waxaanu leenahay raxmadda ilaahay da'aysa in nimcada ilaahay nasiiyay ilaahay inuu inoo barakayo oo aynu khayr iyo barwaaqo ka helo oo kuwii ku shukrinaqa ilaahay ina ka dhigo iyaynu ilaahay ka baryaynaa waxaan u gudbayaa waxa gobolka Sanaag ka dhacaya ucud xisbiga la yiraahdo niman galeeno waxay u bixiyeen nayu ucud bay u bixiyeen waxa dhacday xukuumadan Muuse Biixi waxay gobolka Sanaag ka wadaa nayu Sanaag wax la yaabay doonaysa in abuurto taariikhduna wax guuraya maaha waa wax la yaqaan cidii deganayd boqolkiiba 80 cidii isku layn jirtay cidii ka wada hadli jirtay cidii looga garniqi jiray ilaa Ingiriis iyo wixii ka horeeyay wixii ka dambeeyaba waa wax qoran oo la og yahay noqon maayo gobolka Sanaag nayu Sanaag noqon maayo taariikh baa iska taala xargagi markay dhacday 54 bay dhacday 6 iyo 50 bixisay meeshii lagu heshiiyay waa wax qoran oo la og yahay xudun baa lagu kala qaatay dagaalka xargaga la oran jiray geela la bixiyeen 4 kun buu ahaa qaraweyna la oran jiray kii ka dambeeyay cidii ka heshiisay ee go'a taagtay nabadii go'a taaga la oran jiray cidii ka heshiisay ee go'a isu taagtay waxay ahaan daarood iyo habar jecel ahaay markii dambena shimbiraala lagu qabtay shirarkii markii ugu dambeysana gabagabihii wax la galay meesha la yiraahdo garadag markii dambena nabadii baa la israaco wax la tagay doorame iyo laga soo xilay nabadii taariikh buu leeyahay gobolku waxaan leenahay xukuumadda Muuse Biixi horta markay idin doonaysan in noo garnaqdaan idinka yay noo garnaqaya gobolka yagii baa wareejiseen cid kala ku wareejinaysaan waxaan soconayn baa wadaan oo kullu go'aysan waliba nimanka jooga eelfeyn ee yiri dadkan u garnaqayna waa kuwama waran cadeeyayna kaahinba waran cadde waa ninkii noo yimi iyadoo 3 qof dhimatay ee noogu yimi bacaha isagoo wata taandooyin iyo ciidamo iyo dumar iyo waxa wata wuxuuna yiri waxaan way dhamaanaysaa arintii halkaas ayna taagan tahay intii dawladda hadhay ana dhameeynayo nagu wasiirana waa la socdeen intaanu eelfeyn tagno iyo guddi noqda ciidamadana aanu inoo kala dhex jooga dadka buu habeenkii ciidankii uga yeedhay Cabdullaahi Suufiya loo yeedho ragii joogay habeenkiiba ciidankii ka baxa wixii ka dhacay waa ogeydeen wixii ka dhacay waxa in dagablo lagu dhinto in ragii lagu laayo in dagaalkii noqdo dagaal kala mareeba ah oo dab gaadhay oo dil fara badan gaadhay waxa ninkii dhigay buu ahaa waxyaalo kalena waa u weheliya ina ka waa kuma waa kii ku fashilmay eelfeyn ee yimi ee la yi war maleeshiyada taagan ama qaramay ama hubka ka qaad ama jabhada soo qabo ee yiri qaban maayo maleeshiyadana lagu dari maayo hubkana laga dhigi maayo eeryaan baa nuba caawa la soo weeraraya dagaal baa dul taagan waanu ognahay in caawa la weerarayo ciidan gaybaan niri wuu ka aamusay habeenkii baa dagaal dhacay 9 nin baa ku dhintay ninkii qoladii soo weerartay nina iyo 8 nin qoladii la weeraraya 5 dhaawac tahay labana dhimasho tawaalatay waa arinta la yaabay wax li beeladu daaman la qabtaabay leedahay daba la qabto mal daamankii bay sii daayeen maantana waxay doonayaan dabadii oo waliba firdinayaan waxa weeye ina kaahin ninkii markii la yiri nabadda hal la dhameeyo ee biciida Hargeysa isugu yimi ee Muuse Abukariimi ee suldaankii guud joogo ee lagu sii socdo habar jecladii kale ee habar Yoonis loo yeeray ee la hal la dhameeyo arinta eelfeyn markii ogaaday arintii in la dhamaynayo waa ninkii nabadda dhaxda ka jabiyay ee buur madow la baxay ee shaadiyada jaalka kala baxay ee yiri daraysi hal heshiisiyo iyo baho Ahmed Faarax buu ka dhaqaaqay Sanbuur buu ka dhaqaaqay idla biciidu ka dhaqaaqay Sanbuur ragii dilka wada qabay oo dhan buu ka dhaqaaqay wuxuu yiri nabadda dhacaysa buur madow oo kala goy waa ninkii nabadda dhaxda ka jabiyay markaas maanta nabadgelyo ka wada eelfeyn nabad ka keenaya waxa weeye dhibaatadii dhacday ninkii cidii ka mas'uulahayd weeye Muuse Biixi iyo baa dhigay arinta iyo ina kaahin iyo xukuumadooda dhigay dagaalka socdaana waa siyaasad dagaal qabiil maaha mishiina wuxuu yaala Hargeysa madaxtooyada mishiina Sanaag buu yaala labada mishiin baa baxaya waxaan waa laambadihii banku waxaan leenahay wagi shabada uu doonayo waa tuma cidda gacan ku dhigliyaasha uu doonayo magacyadoodu waa kuwama shabadii caare ee baxday ee magaca lahayd ee la yiqiin tigna kadeedii baa taagan oo ku laysay
darar weyne ragga oo ku laysay ceelafweyn dumarka oo fadhigaab weerartay oo ceel baxay taagan oo ina libaaxay u madax yahay haye yuu doonayaa wuxuu yidhi gacanku dhigidaal baan doonayaa jabhad baan doonayaa jabhadda uu doonaya magaceedu waa maxay taasi ma waxa weeye yuhuud baa kuwanuu doonaya ma falastiin baa kuwa ceriga jooga siraadley waa ciidan gadooday oo ka baxay ciidanka oo bilayska ka cararay oo xaqoodii waayay oo militariga ka tegey oo xuquuqdoodii waayay oo jooga siraadley weeye kuwa kalena waxa weeye qabiil la fidmaynayo qabiilka Axmed Faarax oo la fidmaynayo oo la leeyahay halkii nabadda laga doonayo in dadka la isu keeno oo la heshiisiyo oo waayeelkeeda loo yeero wuxuu ku bilaabay rasaas iyo baacsi iyo guriyo jabin iyo ilaahulul ilaa dhuur cilaan ilaa iyo laastomaare ilaa meel kasta wuxuu geliyo technical war ma technical lagu heshiisiyaa dad iyo khasab waxa weeye fidmadii dhacday ee isagu ogaa ee uu dib u dhigteen isagu Muuse Biixi markay buurmadow soo kaxaysteen tii ay dib u dhigteen bay iminka wadaan waxaanu leenahay Axmed Faarax waa biciide Siciidna waa suldaanka yagii hadduu qaato tuute iyo hadduu cimaamad qaato labadaba waa suldaanka yagii mana aha marka dadka hadeer gashaday shaarka waa raggii gashanaan jiray waa raggii aad ka maqashay ma aad aqoone malaba saddex baad ka taqiinay Axmed Yare iyo Dhunkaal iyo Maxamed Xaaji Ducaale iyo Muuse Bidaar way Siciid haddii dalka la nabadgelyo la waayo tuutaha way gashadaan ninkii kibrana waa ka biyo keenaan waxaan leenahay biciida laba magac ma kala leh waxaan leenahay waxa ay yihiin Axmed Faarax baan nahay jabhadan waxa weeyaan waa kuwa dhinacaaga taagan haddii jabhad doonayso haddii gacan ku dhig la doonayso warma waxa loo yimaadaa nimanka hablaha aan waxba samayn ku xidhay burco ee madheera ku xidhay ee eragaaba ku xidhay hablaha biciide iyo caruurta yaryar ee umula xidhan ee ay burco ku dhinteen lagu aasay inantii Cali Faarax burca lagu aasay iyadoo xidhan ninkaaga telefoon u dirtaa la yiri nimankii hablii kalena waa kuwa ku jira jeelka ergaabo war ma ragga hablaha iyaga madheera iyo ku shubaya iyo jeelasha ee umula ah ma kuwaasa garnoo qaadayaan gar diranayna idin diran mayno wuxuu yiri xaaji aadan baa yiri sidii ceel muludii isha iyo maaxdi ka idlaatay oo rubadku aad ugu milmay buu galay madowga iyo dadka kale bulax buu cuno waa mulansaday ma mastuuranina wuxuu la galay madax ceebti xukuumadii Muuse Biixi rubadkay ku galgalanaysaa rubadka bahal baa rubadka ku galgashay anigu halka ka sheegay baa dadku uu yaqaan dawladii aynu ka eegaynay siyaasad wanaaga iyo dhaqaale wanaaga iyo ixtiraafka iyo nabadgelyada rubadkii bay sidaa ugu walaaqanta haddaba waxaan leenahay ilaa Axmed Faarax ilaa aynu helayno dad cadaalad ah oo inoo garnaqa horta iyaga ayay inoo garnaqa gobolkeeni bay wareejeen hadday shaqaale lahaa iyo hadduu degmooyin lahaa ilaa magaalo madaxdiisii dadka ergaaba ay soo bedelana waxay sida aanu idinana kula shaqeeya dadka qaarna cadaadiya qaarna madaxa saara haddaa ka baydaan halka waa la dikariyaa shaqada cidda u shaqaysaana sida weeye idinkana waxaanu idin leenahay micinaanu nahay way idin la soconaa waxa weeye ha samaynina dagaal nabadgelyo waynu rabnaa beela inuu la dagaalano dooni mayno xukuumadda Muuse Biixi baynu doonaynaa inuu labada mishiin ka baqtiina midna yaalo hargeysa midna ergaaba yaalo marka laambadu iska baqtiyaya maanta jabhadaha idinka samaynaya idinka fidmada samaynaya idinka dadka bacsanaya idinka tiknikada ku eriyanaya idinka guriyaasha jabinaya idinka dadka baleynaya weey waxaan leenahay wallahi waa lu go'deen Muuse iyo xukuumaddiisu inaydan saxayn oo sida ku wadayn oo aan cid idinka aqbalayn biciide waa biciide haddii biciide dhaaftana gaabata ka horeysa waxaan soo maleynaa gaabata isla gaanay annaguba aanu khalisi doona haddii Allah yari waxaana barateen xukuumadda burburisaan baa soo barateen ma aydin baran xukuumadda sida loo dhiso marna askar baa ahaydeen marna jabhad baa ahaydeen baaraynta iyo maamulka cid idin qabato samaysta laakiin se idinku niman garanaya ana biciidan soo laynaya ana baloodaan qaadanaya war wax idin soconaya maaha waxaasi